badiba xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera oo hogaaminaya gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Maayir Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciid ayaa maanta isugu miikal fadhi aan caadi ahaan iyagoo shaaciyay inay anshax marin ku sameeyeen saddexdii xildhibaan ee ka tirsanaa degmada Berbera ee hadalada isku mariyay warbaahinta sheegeen in xaalad ka taagan tahay deegaanka Bahdoon ee degmada Berbera sidoo kale waxay sheegeen inay ku ganaaxeen 3 milyan oo shilinka Soomaaliland iyo in halkal fadhi uu ka maqnaado xildhibaanaduna hadalka ku kala dambeeyeen waxa hadaladoodii ka mid ahaa golaha deegaanka wuxuu qaraar ka soo saarayay xildhibaanadii golaha deegaanka ee hadlay golaha deegaanka degmada Berbera markii uu fariistay wuxuu go'aan soo saaray in 3 talaabo laga qaado xildhibaanadii golaha deegaanka ee hadlay qodobka koowaad waa halkal fadhi oo uu ka maqnaado golaha waa ganaax lacageed oo 3 milyan ah iyo warqad qoraal oo digniina insha Allah taala waxaa jiray xildhibaan baarlamaan oo ka hadlay arrintan gobolka Saaxil yana waxaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka golaha deegaanka ee degmada Berbera waxay leeyihiin waa in talaabo anshaxa aad ka qaadaa ama talaabo waafaqsan shuruucda golaha u taala baarlamaanka inuu gacan dhaaf ku sameeyay shaqadii iyo hawshii qarankan naga noo yimaday wax kale oo jiray xildhibaan ka hadlay sheekh golaha deegaanka ee degmada Berbera iyagoo isku duuban waxay mar labaad golaha deegaanka ee degmada sheekh ka codsanayaan iyaguna saasiin ay talaabo ka qaadaan waxaan u leeyahay bulshada reer Saaxil iyo dadweynaha reer Berbera dhulkeenu waa nabadana ilaashano wax nabadgelyo darri kama jiraan gobolkan guud ahaantii iyo degmadaba xildhibaanada hadalka ku hadlayna waa hadal beena waa hadalaan wanaagsan talaabo sharci ah ayuu goluhu ka qaaday oo waajib ah markii aanu dhinacyo badan ka eegnay markaanu aragnay inay ku kaceen waxaan waajibkooda ahayn xildhibaanadu saddexda go'aan ayaa golu isla qaatay gudoomiyuhuna noogu gudoomiyo waxaanu leenahay xildhibaanada golaha deegaanka Berbera ka hadlay arrinta qaabka u hadasheen iyo qaabka hadii bilidmeyne ka sugayay way kala fogtahay waxaan isla garanay saddexda xildhibaan ee naga midka ah ee ku hadlay afka colaadeed waxaan isla garanay inaanu sida xeerkayga u dhigayo aan garaxno ganaaxaasoo 3 qaybood u dhigan 3 milyan oo lacag ah kalfadhiga loogu soo horeeyo oo ay ka maqnaadaan iyo waxay ahayd digniin qoraal ah oo la siiyo Sadiq Carab Taliban telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Berbera